السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنا خالد عبد الجحنو. sida wada ogsoonayn casharkan maalintii hore soo dhiganay oo halka inooga muuqda waxaan soo dhiganay waxa loo yaqaan trial balance waxay tahay iyo sida loo diyaarinayo waan wada baranay waan filayaa maanta hadii la raado waxaynu ku xigsiin doonaa waxa loo yaqaan financial statements ka hore inoo soo yar carrabaabnay inta ay u kala baxayaan baynu soo aragnay teen maanta ku celino financial statement-ka sidoo kale waxa loo yaqaan financial reports baa loo yaqaanaa sidoo kale financial reports marka la leeyahay afartan way ka yara balaaran karaan financial reports iyo financial statements way yara kala xog balaaran yihiin financial reports-ka report-yo yar ayaa hoos iman kara laakiin financial reports-ka ama financial statements-ka afarta ugu isticmaalka badan caana adduunka ka ee la isticmaalo waa kuwan afartaas waa afarta ugu caansan ee laga maarmaanka afarta in la arko company-ga marka xisaabtiisa la xiro kadib in afarta macluumaadka ku jira la ogaado ayaa loo baahan yahay waxa loo yaqaan income statement profit or loss statement baa soo kala yiraahdaa waa statement-kii ama warqadii sheegaysay faa'iidada iyo khasaaraha soo loo diyaariyo maanta insha Allah waan dhigan doonaa taas owner equity statement baa isagana jira waa statement-ka sheegaya hantida company-ga ama ninka raasamaalkiisa waxa uu yahay equity-ga ama capital-ka meeshaas inta uu yahay iyo sida uu kordhay iyo inuu yaraaday ayay ka sheekeynaysaa sidoo kale balance sheet statement waxa la yiraahdo ayay iguna jirta waxa ay sheegaysaa hantida company-ga oo dhan wax maqan iyo wax yaalaba waxay sheegaysaa in balance sheet warqad reeba sheegaysaa waxa ay sidoo kale ku qotontaa qaacidada loo yaqaanay asset is equal liability plus capital ay sheegaysaa oo sidii trial balance-kan ku soo arkaynay qayb waxa ku jirta asset oo la mid ah qaybta liability oo loo geeyo qaybta capital-ka warqadaasna financial position of the company way sheegtaa waxay sheegtaa heerka uu company-gaasi marayo iyo halka uu gaarsiisan yahay hantidiisa qofkaasi uu haystaa inta ay leeb tahay waxaynu inta badan maqalnaa dadka adduunka ugu caansan ama ugu lacagta badan intaas oo billion bay haystaan marka la leeyahay intaas oo billion bay haystaan balance sheet-ka ayaa la eegayaa asset-kooda intay leeg tahay ama hantidoodu intay leeg tahay ayaa la eegayaa sidoo kale waxa loo yaqaan cash flow statement ayaa jira kaas ay hore soo sheegnay corresponding ay wadnaa principle of accounting one laguma dhigto waxa weeyaan waa cash inflows and outflow waa cash-ka dhaqdhaqaaqeedii cash-ka soo geliyay iyo baxayay dhaqdhaqaaqiisa ayaa la sheegayaa iyo halka uu ku kala maqan yahay ayaa laga sheekeynayaa marka lagala socda cash-ka dhaqdhaqaaqeeda cash-ka lacagta cash-ka oo keliyata cash-ku had iyo jeer dadku qaar badan waxa u yaqaanaan lacagta aan markaa dollarka ahayn wadankaas oo kale ama hadii jeer Soomaalideenu Soomaali shilinka ayay cash u yaqaanaan marka cash marka la leeyahay maaha lacagtii cadaanka ahayd ee gacanta lagu hayo keliyata waa any currency weeyaan waa lacag kasta noocay doonto ba ahaatee marka la hayo iyo wax bank yaala sidoo kale cash waxa lagu tilmaamaa waa checks wax kasta oo lacag lagu bedelan karo ama lagu qaadan karo ayaa cash noqonaya marka cash kumaha lacagta oo keliyata runtii sida accounting-ka afkiisa uu yaqaan ama lagu xisaabiyo xisaabaadka cash-ku keliyata maaha lacagta gacanta marka lagu hayo cadaanka waxa kamid ah soo sheegnay check-ga casharkeenu ma ballaarna laakiin hadalkiisa ayaa badan sharaxaadiisa ayaa badan inaad concept badan ka qaadato ayaa kaaga fiican in wax badan aynu akhrino oo statement-nadana waa kuwa ugu muhiimsan waa important kuwa ugu muhiimsan maadaama yihiin waa in concept fara badan laga qaataa statement-na magacyadooda labaad ee loo yaqaano way soo sheegnay owner equity-ga sidoo kale isagana marka qaar waxa loo yaqaanaa retained earnings statement retained earning-ku waxa weeyaan waa statement wuxuu markaa sheegayaa business-kaasi inaan uu ahayn business ownership ama sole proprietorship oo uu qof kaliya leeyahay marka business-ku dad isku jiraan ayaa statement-ka aan loo aqoonin owner equity statement haddii aynu ugu horeyno sida u kala horeeyaan income statement baynu bartan kusoo aragnay
income statement-ka waxaa loo diyaarinayaa sidii warqadii aan soo aragnay trial balance-ka ahayd. Magaca company-ga ayaad halka sare ku qoraysaa, date-ka ayaad ku xigsiinaysaa, warqadda magaceeda ayaad sheegaysaa. Marka warqadda magaceeda maalintii hore halka trial balance bay noogu jirtay, imika laakiin waxaa inoogu jira income statement. Income statement-ka waa profit and loss statement. waxaa la diyaariyey date-ka halkaa ku xusan ee November 30. Waxaa markaa statementiska loo diyaariyaa laba hab baa loo diyaariyaa. mid single step baa la dhahdaa, midna multiple step baa la dhahdaa. mid waxaa la dhahdaa single step waa hal tallaabo oo keliya ayaa wax lagu kala saaraa profit ama loss-kii la galayna lagu soo saaro. multiple step-kana waxaa lagu soo saarayaa dhowr tallaabo oo kala duwan, waxaana had iyo jeer saameynta ku yeesha oo ay khusaysaa waxa weeyaan waa business-ka noocuu yahay. business-ku hadduu yahay business merchandise oo wax iibinaya, statement-ka uu diyaarinaya ma noqonayo mid single step ah, laakiin wuxuu noqonayaa mid multiple step ah. Iminka sidaynu halkan kusoo arkaynay ama aynu cashirkan soo qaadanay, company-ga xisaabtiisa xidhina waxay auto service buu bixinayay, isagoo single step baa lagu diyaarinaya statement-kiisa. because of multiple step ma samayn karo ama step badan oo dhowr hab oo badan ma marayo statement-kiisu. Revenues-ka markaynu joogno, revenues-kii unbaad ka goynaysaa expenses-ki. marka waxaa kusoo baxaya net income for the owner auto service. net income-kii ugu dambeeyey ama wixii ugu dambeeyey la faa'iiday. revenue-ga haddaba halkii baad ka keenaysaa, expenses-ka halkii baad ka keenaysaa si aad u hesho net income-ka ayaan isweydiinayna. haddii casharkeennii hore dib ugu laabanno, maalintii ugu dambeysay trial balance-ka waa inagii midba laga dhiganaya, waa inagii hore soo sheegnay. general journal-ka markaynu maraynay waxaynu sameynaynay Boston oo in kasoo dhiganay general journal-ka. markaynu Boston-kii dhammaynay waxa soo galay trial balance oo in kasoo dhiganay iyadana Boston-kii. trial balance-ka imika markaynu dhammaynay iyagana waxaan sameynay statement-iskan kuwa ugu horeeya waxaynu ka dhiganaynaa imikana si aynu u sameynay income statement. income statement-ku maxaa laynooga baahan yahay? revenues iyo expenses. revenues baynu bartan kala soo baxaynaa, haddii expenses jirana bartan aynu kala soo baxaynaa, ama kharashaad jiro. expenses waa kharashaad. waayahay halkan wax revenue-ya 1800 baa ku jira. 1800 waynu qaadanaynaa, waxaan la tegaynaa revenues-keena aynu ku qoraynaa. expenses-ka ayaynu iyadoo halkan soo dhigaynaa si aynu uga jarno. expenses-ka waxaynu kasoo eegaynaa trial balance-ka inay wax expenses la dhahdo ku jiro. cash, account receivable, tools and equipment, land, building, account payable, note payable, revenue, capital. wax halkaa kuma jiro expenses la dhahdo, kharashaad muu gelin company-geenaasi. marka bishaa kharashaad muu gelin. waynu iska soconaynaa. expenses-keena zero baynu ka dhiganaa. qawsna waynu gelinaa. qaws marka calaamadda qawsku waxa accounting-ka looga yaqaanaa inay tahay less ama minus. halkaynu ka qori lahayn minus intaas ayaanu ka goynay, waxa weeyaan waa waxaad qaadanaysaa calaamadda qawska. markaa tiradii aad ka goynaysa revenue-ga ayaad ku xidhaysaa. haddaba waxaa meesha iyaduna ku jirta, maadaama uu expenses-kii aanu jirin maxaynu usoo qaadanaa? warqadda waxay leedahay format la maro. marka haddii aad expenses weydo ha odhanin waan waayey oo ha iska tegin, oo ha iskaga tegin revenue keliya inta iska soo qorato net income-na ha odhanin. waxaa muhiim ah in aad tidhaahdo revenues-kaygii intaasu ahaa, expenses maan gelin oo aad zero dhigato, dabeedna aad net income aad diyaariso insha allah. marka maanta casharkeena ugu dambeeyay income statement baynu ku joojinaynaa. maalmaha dambe ee equity balance sheet baynu sii falanqayn doonaa haddii la idhaahdo. waxaan rajeynayaa imika in xisaab xidhkii intii aan soo marnay oo dhan aad xidhi kartaan, income statement aad soo gaadhsiin kartaan. waxaan ardayda leeyahay dadaal fiican. assignment-kii insha allah in sida ugu dhaqsaha badan loo soo gudbiyay ayaan u baahanahay. intaanay gaadhin deadline-ka dhowr jeerna ugu celceliyey. intii aan ka hayana aad iyo aad bay mahadsan yihiin. waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka oo Khalid Cabdi Kaxnuug. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.